arrimo socon doona waqtigan soo socda hadduu eeben lagu simo oo ah dhismihii ciidankeenna dib u dhaca ciidankeenna maxaa xal ah sidee ciidankeenna kor loogu qaadi karaa siduu waddankani doctorin difaaca u yeelan karaa waddankeenu akademiyad military buu leeyahay iskuul ecole militaire leedaha alxaaji xasan guleed baa jira wax doctoriin ah oo difaaca ma laha weli waddankeenu maxay arrintaasi ku dhacday xaggay sartu iska qaban leedahay arrimaha baan isdul taagaynaa waqtiga soo socda marxalado waaweyn oo uu sabab ahaa taliyaha ciidamada hadda joogina waan ka hadli doonaa laasim boogta haddiina farta la saarin lama dareemayo waxay boogta tahay dhibta jira haddaanan la sheeginna xalka lama helayo waxaan ku bilaabi doonaa ma soo gaarnay jaran fooxle iyo alfo gaasaysta jaran fooxlii waa jaran aan lahayn khibrad military aqoon military aan lahayn laakiin u qaba inuu waddanka kan dadka kale ka leeyahay oo ciidamada kale uu ka leeyahay waddanka siday arrintaasi ku dhacday general secretary ma isaga madaxweyne ah amar ma qaataa secretary waxaan anu qabaa inuuna secretary amar qaadan oo uu isagu madaxweyne yahay haddii uu ismaaciil hadda joogo iyo lase madaxweynihii horeba uu alxaaji xasan guleed marka waxoogaa waxaad moodeysay inuu madaxdaa hore taliyaha ciidamadana ma wahayn laakiin ma ka qaadan jiray taliyihii hore ciidamada cali meydel amar ma ka qaadan jiray maxaa dhici jiray maxaanan ugu soo joogay anoo ciidamada galay dhowr iyo siddeetankii lix iyo siddeetankii awalkiisii galaa ciidanka maxaa yacni maxaan u soo joognay ciidamada maxaan uga soo joogay uu sakariye waxyaabaha uu ku kacay maxay ahayd maxaan maqlay oon ka maqlay dadkii ciidanka ahaa oo taariikh oo dhaba sakariye markii ay ciidanka la bilaabay dhismihii ciidankan hore soo sheegay horta wuxuu aada moodeysay in loo isticmaalayay inuu ka takhaluso saraakiishii ahayd farsaasa ka soo gashay inuu ka takhaluso arrintaasoo gacanka hadal isku bedishay sanadadii siddeetankii labiyo siddeetankii waxaa la isku dayey sakariyaha jarnaalkii hadda ah in la khaarijiyo oo laga hor qaado ciidamada ayaa la isku dayey isku daygaa oo fashilmay waxaa loo qabtay saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenno iyo dablayaal dhowr nin ayaa loo qabtay uu hogaanka u ahaa liyatna camir cadaawa rooble haligey ciidan oo geeriyooday iyo cabdicasood ninka la odhanayay inuu dhintay ma aqaano dhega weyne inay dhintaan ma aqaano raggaas haddee dhintaan allah u naxariisto raggaas 4 nin baa loo qabtay habeenka la isku dayey in la khaarijiyo sakariye oo isku daygaasi uu fashilmay waxaa la iskugu dayey in la khaarijiyena idib darrada iyo dhibaatada uu ciidamada ku hayo oo wax ka qabtayna ayna jirin ayaa taa horseedka u ahayd oo sabab u ahayd waxaana nuu soo joogay waxaa kamid a maalin maalmaha kamid a shirkii gaad iyo jabuuti lagu qabanayey waxaan ku jirnay ciidamada dugsiga military ee holhol ka soo baxay oo salaan yaan bixinaynay ciidamadana markii la qoro dhalinyarta markii la qoro howlaha u badalna iyakaa loo diraa shirkii gaad waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ayaan joognaa waxaan biki dooneerka ciidamada leedhaah oo salaanta bixinaya ayaan kamid ahaa waxaa salaanta bixinaya allah u naxariiste commanda xaysame maxamed xaysama oo haliyey qaran isaguna ciidamadeena saraakiishii ugu wanaagsanayd uu ku jiray ahna ninka salaamaha dibadda madax sharaf marti sharaf markay dalkeena imanayso ninka soo dhaweynayey ee uu madaxweynuhu brotocoolka salaanta leedhaha salaan sharafka ninka bixin jiray isagoo ahaa maxamed xaysame wuxuu ahaa haliyey ciidamada ka tirsan uu dhintay allahu naxariiso maalin maalmaha kamid a anakoo joogna waxaa la sugayay arboorka waxaan sugaynay madaxweynaha dalka uganda waxaa yimiday fadxi iyo sakariye oo isla socda xaysame allahu naxariiste wuxuu joogaa halkaa buu joogaa anakuna waan joognaa diyaar baan nahay sirbalas baan fadhinaa markaasuu sakariye yidhi waa in halkan laga qaado bahasha
ay madaxdu dhex joogsato oo la idhaahdo ceremoniga lagu bixiyo muusiqa astaamaha wadamada lagu qaraa halka laga qaado dhanka kale laga soo jeediyo yidhi fadxina halkaasuu iska joogay laakiin waxay sameeyey arrinta uu qaadan waayo arrintan uu ka shaqaynayay ilaa subaxdii sakariye wax shaqadiisa maahayn waxay sameey halkii ayuu ka xanaaqay oo wuxuu yidhi waan baxay anigu kedinka ayuu ka baxay arrintii baa la isku yaacay dhibaato waxay noqon lahayd cajaa'iba madaxweynihii wuxuu yimid alxaaji xasan guuleed xaysamo oo maqan xaysamo oo maqan buu yimiday xaysamo uu socday wuxuu tegey allahu naxariistay xeradiisii saciid ayuu tegey waa laga daba tegey xaysame waa soo noqday salaantiina sidii bay ku baxday wax laga qaadayna ma jiro oo sakariye lama qabsan oo cid la hadli karin ma jirto kolkaa weligiiba waxaad moodaa inuu sidan iska ahaanayay amuuraha kaloo cajiibka ah oon usoo joogay waxaa kamid a in sakariye uu maalin maalmaha kamida loogu yimiday xerada cali sabiix markaa waxaa ku xiran wiil uu isagu dhalay oo uu ugu soo celiyey camal yacni si akhlaaq celina amba masuur disciplinaire uu kusoo xidhay waana kiisii shacab buu ahaa laakiin xerada military buu kusoo xidhay ninkii waktigaa joogay oo xerada halkaa joogay wuxuu yidhi warda anigu qofaan askari ahayn sidaan u xidhaa halkii baa la yidhi ninkan xidh koloneelka soo diray waa la soo diray ninkan waa la xidhaa ninkan waa nin shiciba halkiiba annakaana loo keenay annaka ayaa naloo keenay markaan leenahay annaku kooxda ciyaarahaan ahayn oo calishabiib baan joognaa halkii ayaa iyuu annaka nala joogay sakariya ima doona laba dhowr cisho kadib isagoo direyskii sita yarkan uu dhalay wuxuuba sitaa koloneelkii aabihiibu iska sitaa uu soo xidhay direyskiibu soo xidhay ayaa ka qaadaya markaasuu yidhi aabihii isagii isla dacweyna laisku maqlayna wuxuu leeyahay aabo aduu iskoolka halkeedka gaadhi unturaseen baa dhigtuu iskoolka aduu sideed ku haysataa buu yidhi galoonkan sideed ku haysataa buu yidhi adigu waa malaaba kaa xariisan buu iskool dhigtay la turasiyem halkii baa qaadi leedho qasab ha looga furo direyskii calaa kulli xaal waa laga furay waxyaabaha kaloo cajiibka oo aan ku xasuusto sakariye waxaa kamid a inuu sakariye yahay nin yacni aad u ah inuu dadka waddanka inuu isagu leeyahay oo dadka kalena ay yihiin citoyen de seconde gare inay yihiin ayuu u maleeyaa kolkaa meel walba waa faragelin jiray waxaa kamid a amuuraha cajiibka oo kaloo dhacay sanadkii 1991 dowladdii etoobiya ayaa burburtay dowladdii etoobiya markay burburtay waa arrintan khilaafkan nii sheegay arrintaa nii sheegi doon waa arrin aad cajiib oo arrin dhab oo dhacday waa khilaafkay xasan guuleed iyo allahu naxariistay cali meedel inay ku kala boodeen arrintaasi waa arrin dhab u dhacday markhaatiyaasheediina way nool yihiin maanta rag baa kamid a cabdigabaar uu nool yahaan u malaynayaa inkastoo geli karis maqal cabdigabaar dhiyadna cabdulgabaar baa kamid a raggii arrintaasi ay ku dhacday waxaa la joogaa ciidamadii baaraaga waa kii la kala diray wadanka lagu kala daadiyey 20 meel loogu kala diray waa burburkii ciidamadii baaraaga iyay daba socotaa tani waxa weeyin muluxle hub baa ka soo galay muluxle hubka ka soo galay waxa qabtay ciidamadii Itoobiya way wada meel walba dalka Itoobiya ciidamadoodiiba wadanka soo galay sector walba ciidanka ku hayay hubkay u dhiibayeen ciidankii muluxle cabdigabaar baa wata hubkii ay ku wareejiyeen ciidamada Itoobiya waa la soo tabinayaa oo dalka ciidankeenu ma qaadana hubka laakiin inta qoriye ay wareejiyeen iyo waxa baa la qoray waxa la dhahaa situation brise d'armes baa la dhahaa xero walba way samaysaa habeenkii wixii dhacay cabdigabaar warqadii buu soo diray fagis buu u soo diray xeradii baaraaga oo kuwii qaybta dambe joogay ajuudaan kumbani waxaa jooga markaa cabdalle nin la odhanaya jira cabdalle la odhanayay allah naxariistay inuu dhintay aan malaynayaa iyo nin imika adisaaba aan ka arkayay oo la yidhaahdo meelaha aan ka arkay adisaaba waa loo soo diray warqadii baa loo soo diray warqadii baa hoosta la gashay etomadoorka looma dirin etomadoorku warqadaha la soo diro ciidamada brise d'armes ciidan walba waa la soo diraa tii baraaga lama soo dirin hubkii muluxle lama soo dirin waxaa loo sheegay etomadoorkii in la gaarsiiyey hubka cali meedel baa meel geystay yaa la yidhi cali meedel baa meel geystaa la yidhi 12 nin oo rag isku qaraabo ah ayaa arrintaas sameeyey cabdigabaar baana hubka soo diray nasiib wanaag cabdigabaar wuxuu kala hadhay koobiibuu kala hadhay warqadii uu soo diray
cabdigabaar baa soo dhaadhacay si degdeg oo loogu yeedhay ina cutay isagu marka allah u naxariistay waa xabsi guri buu ku jiraa aqalkiisa kama baxo burburkii ciidamada baaraaga ayaa weli socda cabdigabaar markuu soo dhaadhacay ee uu magaaladii yimid diyaarad baa loo diray cabdigabaar si degdeg uu ku yimiday waxaan ku kulanay xerada baaraaga isagoo feel la dhacaya ninka ajudan kombaniga ahaa ee warqadda khabeeyey cabdigabaarna wuxuu ahaa nin maasha allah markuu hadduu xanaaqo awooddiisa isticmaalaa kii feerka uu la dhacayay waa la kala qabtay meeshii buuq halkiibaa midee cabdigabaar ismaajoorku tegay bariisda armigii buu gudbiyey ofisiyada deganaansamentkana sanad bisha waxaa ahaa allah naxariistay colonel cumar bare ayaa ahaa cumar bare yaa loo gudbiyey alaabtii waxaa la ogaaday inay arrintan ahayd qorshe cambaarayna oo khilaaf laga dhex waday lagu baabiinaya ciidamadii baaraaga oo cali meydel iyo xasan guuleedna loo dhex tuurayay arrintii way qaraxday waxaa dhi 12 nin haddii la qabanayn hala qabtaa 12 nin waa la qabtay qaar baa gabood la geeyey laakiin isla markiiba waa la soo daayey arrintaasi keliya door weyn buu ku lahaa burburka baaraagana halkaasay arrintaasi ka horeysay laakiin waxay ahayd dhamaystirkii ciidamadii baaraaga kadib waa kii furuudkii ay soo galeen waa kii layidhi waddanka rida rag baa qaadanaya layidhi dagaalka waxaan u arkaa inuu dagaalkaasi kulley mar dambe hadduu soo noqdo anuu ma galeen kulley ma galeen dadka markaan leeyahay waayo dagaalkaasi dadkii waday dad xaq dulmidiid ay ahaayeen baa oran karaa dulmidiid ayay ahaayeen intay rag badan ku dhinteen geesiyaal ku dhinteen labada dhanba laakiin waa wax laga heshiiyey ku noqon mayna isaga waxaa dhacday in dagaalkii markii uu dhacay magaalada ubuk waxaa joogay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka geesigii gobonimada mudane axmed diin axmed yaa magaalada joogay magaaladu ka baxay saday isagoo fadhiya kolkuu magaalada ka baxay ayaa amar la siiyey inuu cutay waxaa la diyaaradda qaado diyaaradda waxaa markaa wada kabtan nigeeya ayaa wada diyaaradda allahu naxariisto waa dhintay waxaa la yidhi cutow axmed diini u tag saday ka soo qaad hadduu ku diilana hal la khaarijiyaa la yidhi hadduu ku diido oo kusoo raaci waayo hal la khaarijiyo cutow wuxuu yidhi anugu gacan aan ku dilo ra-iisul wasaare hore oo qaranka gacanteeda kuma taalo hadduu i diido waan u tagay hadduu i diido waan iskaga soo noqonay uu u tegey uu ka soo noqday uu iska diiday diini wuxuu yidhi kuma raacayo cuta halkaa waa lagu qaniinay iyagoo ka dhaadhicinaya dadkana marka dambe inuu cuta nin 40 necab uu ahaa inuuna cuta 40 necbayna waxaa kamida dilka axmed diini dil la yidhi axmed diini markuu yeman tegey warqad buu usoo qoray uu ugu mahadnaqaayo waayo uu maqlay waxaa kaloo cadeymaha kamida inuuna cuta 40 necbayn meesha quray cafar iyo soomaali isla shaqeeyaan ciidamada cuta u xakumay haydo ubku jooga meelaha kale ciidamada waa la kala soocay oo ciidamadu nimanka qowmiyadda afarta ka soo jeeda xerooyinka laga tegay marka dagaalka la galayo laakiin cuta ciidanka uu xukumayay waxaa adjuwaan u ahaa xaaji muuse labaale cafar ayaa adjuwaan u ahaa cafar iyo soomaalina halkaa waa la wada shaqaynayay waxaa kale oo been ah oo beenaynaya inuuna cuta 40 necbayn cabdo block wasiirka hore amuuraha dibadda aabihii baa la shaqaynaya cuta allahu naxariistee labadooduba way dhinteen allahu naxariisto blog yaa la shaqaynaya direct cuta isla shaqaynayeen meel ay wada shaqeeyaan qowmiyaduhuna halkaasaa ka jirtay arrintan ah cuta 40 naci jirayna waa arrin ay sameeyeen sakariye iyo inta lamid ah halkaa markaad joogto oo dagaalkii uu soo dhammaaday nabadgelyadii waddanka ay dhacday waddankii nabad noqday waxaa bilaabantay arrintii dib u dhiska ciidamada maalin dhaweed waxaan dhegaysanayay tv la sheegay oo laleeyahay ciidamada waxaa lagu soo daray ciidamada gaarda republikaanka la yidhaahdo oo laga soo qoray booliiska jandaaranka iyo militeerka baa cajiib weyn arrin yaaba weyn gaarda republikaanka hale isku keenee raggii dhisay waa kuwee raggii dhisay inan maxamed jaamac la yidhaahdo imika cornel sita laakiin kabraar ahaa oo booliis ahaa oo aan lahayn aqoon military iyaa waxaa loo dhiibay baashi markii la sallaxay ee la dhisay ay dhiseen nimo saraakiil oo aqoon lii uu cabdo cabdi dhambiil ka mid ahaa gaarda republican fondateerkiisa wuxuu ahaa cabdo cabdi dhambiil bay ahayd halkii isaga looga dhiibi lahaa waxaa la yidhi meeshu waa cajiib weyn qoysku waa yaab weyn waxaa la yidhi cabdo cabdi dhambiil halkan kuma fiicnaya ha laga qaado oo ha loo dhiibo
كبرال محمد جامع أو وقتها بوليسها أو كوماندو بوليس وطا محو فورماسيون عن كولي محمد جامع مركع محو لي ميليتير محو كي قال ميليتير محو ديكتي أكاديمية ميليتري متجي إيكول دي توماجور مسميي متجي إيكول دا جير مايا متجي واني بوليسها هدي لنا بوليس كي ميليتير كمحاول حيث كوالا ديفرانس انتر لا ميليتيركو و شقة قولي وليه بوليسكو لا شقة قولي وليه بوليسكو وحو هوستغا وساردا أمورها قودا أيو هوستغا وانا الشعب وين بوليسكو وفوكس سيفيك وين بوليسكو إلاليا ماتيان دولوردركا دولكا إن ودقنادو لكن ميليتريقو waxay bartaan dagaalka sida loo galo dhismaha ciidanka waxaasay bartaan ninka ee tomajoor markuu colonel markuu gaadhana da wuxuu iyo komanda markuu gaadhana wuxuu galayaa chef de bataillon buu noqonayaa kadib wuxuu noqonayaa nin ee tomajoor fadhiisan kara école de la guerre inuu maro waa qasab weyn maxamed jaamac école de la guerre ma tegin muxuu maxamed jaamac u noqday komandaha gaardi republikaaga u noqon waayay cabdi dambiil waa isweydiin weyn la weydiin doono ismaaciil cumar iyo dowladda uu wado oo uu yiraahdo jamhuuriyad baan nahay kolka maxamed jaamac meeshan uu jooga imika ma oran karno waa meel liidata laakiin meel uu xaq u lahaa isagu ma aha waayo formationkeegii ma leh kaaliteegeegiina ma leh waa nin shiciba booliis ahaa booliiska waa inuu militeer noqdaa horta si uu u noqdo nin militeer waa militeer direes militeer buu gashay imika maxamed jaamac laakiin ma sameeyey formation militeer ma sameeyey ilama aha inuu sameeyey muxuu ku tegay halkaa waxaa la weydiinteed meesha siday wax u socdaan waa qoysku ka tirsan yahay amba waa qaraabada kolka ciidamada qalabka sidow waxaan idiin sheegayaa oo nileehay maanta dadkiinani rasaastaad la dhacaysaan waxaad dareentaan dadkii ninka niiga horreeyey ee ciidamadan hortii soo maray waxay ku dambeeyeen firiya colonel marxuum maxamed cute isagoo taamba jooga oo dowladda shaqo ugu maqan ayaa loo diray telegram la yidhi 2 cishaad haysataa inaad jabuuti ku yimatid si aad uga guurtid aqalkii dowladdu ay ku siisay oo aad deganayd waxaa la siinayaa nin kalaa la siinayaa aqalkaasi maxamed cute waxaa la odhan kari lahaa waar waktiga aad soo dhammayso shaqada aqalka ka bax laakiin lama odhan waxaa la yidhi ka bax jabuuti ku soo noqo uu soo noqday aqalkii buu ka guuray haddana markuu aqalkii ka guuray oo aqalkii degay iyuu noqday uu ku noqday shaqadii adduunyada cajiibka daawada maxamed cute allahu naxariistee maalintii uu ka baxayay aqalkii u dambeeyey ee wuxuu dalbaday inuu aqalkiisu intuu dhammaanayo uu degada dhismaheegu bilaabayo la sugo muddo kooban loo daayo aqalka uu kaga jiro dowladda madaxweynuhu ninka ismaaciil cumar uu aqbalay wuxuu yidhi war ninkaa iyo generaalkii xasan ha la siiyo cali xasan ha la siiyo 2 aqal oo ay ku sii sugaan labadaa noo codsaday kii kale waa la siiyey cute waxaa loo diray 120 nin baa loo diray kumbani baa loo diray uu chef de bataillon xakumay 4 leer ragu hogaaminaya ayaa loo diray cute aqalkiisa sakariya loo diray waa la jijibshay alla bixi u taalay dibadda barnaanka la dhigay caruurta la joogtay oo dadkii la joogaya oo qaraabadii joogtay telefoonadii ay ku duubeen waa laga qaatay wadankana markaa waxaa loo geliyey in cute aqal la siiyey kolkaa dowladda sidaas ayaad u shaqaysaan raggiina militeerka ow waxaan odhan lahaa taasi waa halkaa weeye halkaas unbaad wada maraysaan waxaa dhacday in maxamed cute uu ku dhaawacmay dagaalkii kursi ridka ahaa ee furuudku ay ku soo qaadeen wadanka intaliska ku soo qaadeen dowladdii waqtigaa jirtay ku soo qaadeen aan waxaan odhanayaa kursi rid buu ahaa dagaal lurida ma ahayn dadkaasi dad xaqu dirirey ahayn baan leeyahay iskiisna waan bixinayaa anoo ku hadlaya magacayga inaan dagaalka u arkaynay dagaal ay cafari dhulku qaadanayso ma ahayn dagaal xaqu dirir u ahaa oo ay ku diidan yihiin dulmiga
geesiyaalna way ku dhinteen labada dhinacbana laakiin waa laga heshiiyey maxamed cute rasaas baa ku dhacday rasaastaasi xididkay ku dhex jirtay waxaa cajiiba markii uu dhaawacu gaadhay inay yidhaahdeen dhakhtarka lama dhigayo faransiiskaan ugala cabsoonaynaa rag jecel bay iska dhigayeen aqalkiisaa lagu daweynayey dhakhtarka ciidamada ayaa aqalkiisa ugu imanayay muddeer markuu joogana waxaa lagu ceshay laakiin way ku meel gaarayeen way ku guurayeen waayo 20 sano kadib rasaastii ayuu maxamed cute eeday jilibka xididka haddii ku jirto waxaa la yidhi oo laga saaro xididkaasi baralisey baad noqonaysaa laakiin dhaktaro fiican haddii la geyn lahaa wuxuu noqon lahaa in la badbaadin karo wuxuu weydiistay hay-adda la yidhaahdo OEJ Foundation oo geeska Afrika oo dhan dadka ka gurta oo Soomaaliya ka gurta Ethiopia ka gurta maxamed cute warqad buu u qortay lama qaadin doosiyadiisa halkii lagama qaadin waxaanan qabaa inuu Sakariye arintaa uu luku lahaa Sakariye se muxuu xumaanta intaa lagu hayay maxamed cute xumaanta intaa lagu hayay maxay ahayd maxaase loo waayay dad Sakariye iyo maxamed cute kala dhaxgala oo xaqu kala soora oo mar walba dhinacay gardaradu tahay sida maanta Fuaad Wiib loogu heelinayo maxaa mar walba Sakariye loo dhageysanayay Sakariye waa madaxweynaha waddanka weyn madaxweynaha maanta isaga Sakariye yaa madaxweynaha sababta uu madaxweyne ku noqonayaa ni sheegaya Ismaaciil Umar lama hadlo Sakariye hadduu qaldan yahay haddii kalaba inuu retreat galabay ahayd waa hore inuu howlgabeen noqdo bay ahayd waa hore laakiin waxaan u malaynayaa inuu Ismaaciil u qabo inuu Sakariye ku hayo meesha oo uu ilaaliyo labadooduna mar quraatay ama wadku hadduu qaado una ka baxayaan amba ay mar qura markay dhammaystaan uu Sakariye waxa rokuuro oo maandayaasha Ismaaciil dhammaysto inuu Sakariyena la bixi doono laakiin taasi dalkan miyaa u fiican tahay uma fiicno ciidamadii waddankan way burbureen waxaa la gaarda Republican yaa la dhisay oo waddanka ku soo biiray oo awood leh gaarda Republicanku madaxtooyada ayay inay ilaashaan loogu talagalay haddii aad aragtid waddan gaarda Republicankiisa oo ciidamada kale ka sareeyaan way ka fiican yihiin way ka qalab fiican yihiin waddankaasi waa kaligitalis wax la isku ilaalinayo awood la isku ilaalinayo weey